barashada farshaxanka dagaalka ee qabiilka shisheeyaha kama fududayn Boba. qalad kasta oo yar ayaa lagu garaaci jiray, afkoodana qariibka ah ayaa dhib dheeraad ah ku sii daray. Boba si fiican uma fahmi karin hadalkooda, balse wuu ogaa in la canaanayo. si uu sharafkiisa u badbaadiyo wuxuu isku dayay inuu xoog muujiyo, balse si fudud ayaa loo jebiyey. Sharkedi ayaa ku yidhi inuu jebiyo ul, taas oo sharaf dil ku ahayd Boba oo mar ahaa geesi weyn. hase yeeshee wuu fahmay in adeegkooda ay ka muuqato isyeelasho iyo qoys wadaag. si tartiib ah ayuu u bartay farshaxanka dhabta ah ee dagaalka, habkiisuna wuxuu isu beddelay mid geesiyeed. xitaa carruurtii qabiilka ayaa xiise ku eegaysay. markaas ayaa si kedis ah eyda sharka noqdeen kuwa kacsan, sidii wax ay dareemeen khatar. qabiilkii oo dhan hubkooda ayay qaateen, laakiin Boba isma gelin. halkii tareen baa ka soo muuqday saxaraha, rag hubaysan oo saarnaana waxay bilaabeen inay rasaas furaan. mid ayay sharksku u dhaceen god weyn. Boba wuxuu carruurtii ka qariyey dhagax gadaashiis, balse xabadihii roob ahaan ugu daayey ma aysan istaagin, warankooduna waxba ma tarin. markii tareenkii gudbay, saxarihii waxaa qariyey dhimasho iyo halaag. aragtida meydadka firdhay ayaa qalbiga Boba si xun u gilgilay, wuxuuna ku dhaartay inuu ka aargudan doono cadaalad darradaas. habeenkii Boba wuxuu ka qayb galay aaska, isagoo meydadka u qaaday dabshidkii oo sharfay. qosolkii carruurta ee maalintii la maqlayay wuu baabay, waxaana ku haray aamusan weyn. intaas waxaa dheer, koox baabuur duulaya wata ayaa timid, taas oo sii xoojisay rabitaankiisa aargoosi. wuxuu la kulmay hoggaamiyahooda, wuxuuna ku ballan qaaday inuu hayo dariiq lagu joojin karo tareenka. markii uu hubaysan yimid hoygoodii, kooxdu waxay ku dhibaataynayeen laba isjecel. markii wiilkii iska caabiyey, hoggaamiyuhu wuxuu ku tuuray gidaarka, si xun ayuuna u garaacay. markaas ayuu Boba yimid. awooddiisa ayaa qof walba la yaabisay. wuxuu soo bixiyey waran dab ah, balse wuu jabtay. markaas ayuu ul qaatay, wuxuuna hal daqiiqad ku burburiyey kooxda oo dhan. qofna ma dilin. keliya khamrigiisii ayuu qaaday oo ka baxay, indhihiisana wuxuu ku dhejiyey mootooyinkooda saxaraha. Boba isagoo fuushan mooto ayuu ku soo laabtay. codka mootada markii la maqlay, qabiilku hubkooda ayay qaadayeen, laakiin dameerkii yar ayaa Boba garwaaqsaday oo dejiyey dhammaantood. Boba wuxuu ka fikiray inuu mootada hadiyad siiyo, laakiin qabiilku waxay bilaabeen inay kala furfuraan si ay u iibiyaan. markaas ayuu Boba joojiyey, wuxuuna yidhi, waxaa lagu joojin karaa tareen. hoggaamiyihii wuu ku raacay, Boba ayaana bilaabay inuu baro dhammaan. mashiinka way ku adkaatay inay kaxeeyaan. markaas ayuu Boba yidhi, u wada sida banta. qof walba wuu fahmay. dameerkii yaraa ayaa mootada fuulay, Boba ayaana goob tababar u dhisay.